boqolaal shacab ayaa isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee Miraa Waare ee magaalada Garowe si ay u dhageystaan muxaadaro uu Sheekh Maxamed Ibraahim Kenyawi ku qabtay garoonka oo ugu magacdaray Cafi Walaalka. Sheekh Maxamed Ibraahim Kenyawi ayaa bulshada si aad ah ugu booriyay inay iscafiyaan, iskuna naxariistaan, wuxuuna ugu baaqay inay midnimada ilaaliyaan, ilaahayna ka cabsadaan. shayga midnimada ee intaasoo shay ina midaynaysa sidaynu ku ilaashanaa midnimadana sidaynu ku ilaashanaa walaalayaal waxaynu ku ilaalinaynaa waxaad ogaataan shaygan qiimiga badan ee iimaanka ee midnimada qarannimada wadaniyada waxaad ogaataan waxaa ku hareeraysan cadow fara badan weynay oo aynu ilaashan weynay waa qarankii aynu ku cuni lahayn qarankii aynu ku ledi lahayn waxaynu oonay qarankii aynu biyaha ku cabi lahayn ayaynu weynay ayaynu dayacanay shayaadiin baa inaga qaadatay hooyadeena waxay u dhimatay allaha u naxariiste waxay u dhimatay waxay weyday wiilasheedii gabdhaheedii waxay u dhowri waayeen qarankii hooyo macaan ay ku leedahay hooyo macaan laa ilaaha ila allah hooyo maxay u dhimatay hooyo iyadoo cunugeedii naaska nuugayo maxay u dhimatay ilmaheeni hooyadeena oo mayda hooyo mayda naaskeedii inuu jiqo maxaa keenay. Sheekha ayaa sidoo kale ugu baaqay kumanaankii ka soo qayb galay muxaadarada in wadajirka ummadda Soomaaliyeed ay xoojiyaan, iskuna duubnaadaan, lana shaqeeyaan dowladooda. war maxaa noo diidaya in xukuumadeena iyo shacabkeenu ay midaysnaadaan, isla shaqeeyaan, xukuumad hogaamisa, shacab la hogaamiyo, wax dhisaya? maxaa inoo diidaya culimadeena iyo shacabkeenu inay midoobaan, in idaylkeen aynu hal qalbiya noqono? maxaa inoo diidaya waxaa inoo diidaya waa shayaatiinu insi iyo waljinni ayaa inoo diidaya. shayaadiin inoo eg annaga, shayaadiin nugu qabiil ah, shayaadiin nugu luqad ah, shayaadiin nugu jir ah, shayaadiin naag jooga, isku sariir aynu ku seexanno, isku sariir aynu ka soo kacno, isku meel aynu ka shaqayno, jaarkaya ah inoo diidaya. waa in mu'minka waa kayis weeyaan, haddii god laba jeer lagama qaniino, 30 sano haddaynu hoos u noqonnay, haddaynu warka munaafiqaa maqalnay, shayaadiinta u dheg raaricinay, maanta waa inaynu ilaahay iyo rasuulkiisa u dheg raaricinaa. Cabdilaahi Cabdinuur Yuusuf Cabdilaahi Bakayle, telefishinka caalamiga CNN Somali TV, Garowe.